عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونحسن ملل بقى الدنيا دعالة كشوفتان وعن كل سوينا حرمت المدو جيو دالك بلشة أما براس سيد الله يغنبه وحن جوجا ضد بدن مرتيا أما كمبنياله كصعود أمد الصوماليات كوا دالك كيمدي كوا دالك عالم كيمدي وحكم بالله بدون ما قاعد يقول بالله بيو محمد شامع بالإرادة مقعد ربيحي معان دقنا هاي لندن وعنا هاي كان عصدا كشقيستا صوماليا وعن حمر كيمد شرعي مع كيمد البوت كان محل لوقت صوماليا كلميسيكا كشقيستا وإلى اللحية تومن كمباني ضد لعقتودي iyo ganacsigoodii ku yimid meeshan buudka waxa qabtay kambaniga Gale oo USAID ah ayaga buudkan u qabtay laakiin dadka halka yimid waa dad Soomaali ah oo kalluumaysato ah kullu yimid inay meeshan networking ku sameeyaan inay taqaan xiriir sameeyaan inay wax ka bartaan in ay mataqaana adduunka wax la qaybsadaan marka si aad u aragtaan halkan waxa ku qoran Somali is rising oo macnaheedu uu yahay ganacsiga Soomaaliya wuu kacaya wuu soo kacaya adduunkan waa laga baranaya waana markii ugu horeysay oo Soomaaliya ay tan oo kale ka soo qayb gasho waana baahi loo baahnaa wasiirkii kalluumaysiga waa jooga waa imaan doona shalana waa yimid safiirkii wuu imaan doona insha Allah maanta isaga 6 saac imaan doona kan ku balansan yahay waa opportunity fiican waa Soomaalida ay ku taqaan insha Allah ka faa'iideysan doonto Soomaalida lagu baranaya كمبنياش هالكن اسمه Soomaalida ah أول هرش ما يصير aqoonin وين كي ماذا ملك Soomaaliya إيش كمبني بقى كسر قيب قشي ما أنت أدي شيء كتاه لا اللي طبعا كمبني كسر قيب قشي أنا قاعد أكبر كمبني أنا أوطوا حالي هذا بيح international fishing وكمبني يرويان إلى دور أنتوا كنسيا إما سو فرع إسرائيل كنسيا مقدشو إلى يشم دومد بوليه هاي وعون الرباح maxaa soo saartaan marka waxaan soo saarnaa kalluun yar ma ka soo qada ka soo qabanaa waxaan la shaqeeyay dadka localka ah oo wadanka u dhashay kambanigan uu bas garisan yahay doomaha ayaan iibsaday diyaas baraana doomahan iibsanay dadkii localka ahaana waxaan siinay shaqadii wax ka soo baxana waa la qaybsadaa intee loo iibgeeyaa waxa aad soo saartaan maxay yihiin waxaan soo saarnaa waa kalluun waxaan loo iibgeeyaa muqdisho dhaxdeeda muqdisho dhaafi laadahayba ma aha wadanka dibadiisa ma aha laakiin waxaan jecelnahay insha Allah inaan dibadahana aan u nimaado ma ka fikirtaa maanta hadii aad adoo muqdisho kaafi waayay in aad caalamka u suuqaysid waxa aad soo saartid maadaama aad kambani aad u yar laakiin anoo kambani yar ah waan ku fikirayaa inaan weynaado kambani weyn aan noqdo waxaan kaloo ku fikirayaa in aan insha Allah Soomaaliya kalluunkeeda inaan kordhino shaqana abuurno anaga waxaan dibadda uga nimid waxa weeyaan dadkeena shaqo u abuurno anagana aan shaqo abuurno oo shaqooyinka dibadaha aan ka nimid aan ka soo baxno ma jira bandhigan maanta aad soo bandhigaysan shalay iyo maanta oo gabagaba yahay maanta dad ka helay ama aad wax la dhiil garaysay ama aad rabto inaad gaarsiisid hawaajin dad badan baa jira dawladaha hal iyo labo waxaa ka mid ah Spain baan aragnay dad Spain ka soo aragnay oo Soomaaliya kalluunka taqaan taadinaya waxaan aragnay Portugal baan aragnay waxaan aragnay Greek aan aragnay Talyaani baan aragnay marka dad badan baa jira oo aad baa loo imaanaya dadka aad bay u imaanayaan mar haddii ka soo qayb gashay kulan aad u weyn ee caalamka oo dhan imisaad ka soo qayb galadeeda markaa waxaa ka soo qayb galay content doo wadan baa ka soo qayb gashay content doo wadan mar haddii caalamka Soomaaliya ay ka dhex muuqday ee aad soo bandhigteen badiini iyo khayraadkiini kuwa aaminsan baddi baa la isku haystaa oo baddi baa ka dhacsan oo xaalkoodu maxaad ugu baraarjinaysaa dadkaas wallaahi dadku laba kale yihiin Soomaalidana waa gooni ajnabigana waa gooni su'aalihii shalana weydiinay waxaa ka mid ahaa badda Soomaaliya si ay ka kalluumaysanaa markay aad ogtihiin markii farasiga inay joogaan tababarcabadeedkii soo ma fahmin waxaan u sheegnay inay tahay waxaasi waxa laga gudbi doono waa run way jirtay wax laga gudbi doono inay tahay haddii adduunka nala shaqeeyana waxa abaadka abuuray marka waxay ahayd dhibaatada Soomaalida ay Soomaalida ka shaqeysana badooda haddii baddi maanta dadku u soo jeestaan oo laga shaqeysanayo oo maraakiibna la keeno dawladina ay caawiso oo protection dadka la siiyo way iska dhamaan doontaa baan ku nari mar haddii badda Soomaaliya ay ciidamadii neeto ama ciidamada caalamka oo dhan ay ku jiraan sidaad uga kalluumaysataan haddana ma shakal meel dheer ma tagno meel magaalada u dhawaan ka kalluumaysanaa dooma yarna aan ku shaqaysanaa marka inkastoo dhib nagu hayaan doomaha ka shaqaysta maraakiibta caalamka iyo dhib nagu hayaan oo doomihii ay gaari karaynin laakiin anagu meel dheer hadda ma tagno anaa iska hadlay laakiin kambaniyaasha waaweyn insha Allah markay yimaadaan oo lala xiriir la samaysto oo agreement la samaysto kulli badda weyn bay tagi doonaan waana insha Allah maxaad ka codsanaysaa madaxda Soomaaliya ugu horeeya wasiirka khayraadka waxaan ka codsanayaa in ay fududeeyaan laysanka dadka loo siinayo waxaan ka codsanayaa inay caawiyaan dadka localka oo doomaha yar haysta baahidoodana ay ogaadaan
baan ka codsanaya insha allah aad baad u mahadsantahay waxaan u gudbi doonaa qaybtii live-ka ahayd ee ummadda caalamka joogtana ay si toos ula soconaysa kana wuxuu galayaa qaybta YouTube-kan ku leenahay Shaafi Xasan aad baad u mahadsantahay mudane waan kugu soo dhaweynayaa arrintaada wajhi